موضوعية كله لكن موضوع أنا كله وين حقيقة وصحيح يجي كورسون إنك ما إنجليش هم بعد صار الشغلة إذا واحد بينا كم قابوسهم كم عمره واحد برشان قابله لكن برنامج أنت رأيك السيد الرسول ديالي السيد بقول بدل هذا وهذا وياك فيسك هذا وهذا في دوكان بيرم كان السيد اللي هو قرية حسلا ساعات ده هو مسكوب له ساعات كان الله سكما هي حسلا بويا هو من ساعات حسلا بدل aad bay ii farax gelisay laakiin farxadda i gelisay fiiriya halka waa inaan aad u dhuuxnaa ma aha inay farax gelisay oo aan arkay in dhalinyaro wax baranayso dad waayeel aan waalidiin iyo macallimiin isugu jiraan ay dadaalayaan waxaa kaloo ay i gelisay dareen iyo yani dhinacyada u fiirshay sababtoo ah waxaan dhinacyada u fiirshay waxay tahay هاو تسمعك عقل بقى أمور يا سما ده مسحة كش هاو كوسا فعلا سمعت عايش بحلي بيجانو ميخي وباهي كارلو ميخي تاجر وباهي أنا تاجر بدي أروح تيجي نقوم حنا شروط مرة وهي نرجع كعلى تاع إلى عرفت ضد السنوات ونا في الشقينا مركز حوي بريك حتى بقول صبري ما كلام بريك الموضوع ما بريك يعني وولوما يسموه سوالي كاو إنه طلعي عدول كان طالع ayaa la hadlayay markaas waxaan shaqeynaya markaan lidii ka shaqeynaya weli ogyahay xaggooda fasax lahay iyagu waxay jiijifaan dhulkan loo dalxiis tago biijajka quruxda badan ayay bishan jiijifaan aniguna markii waxaan iigu dar shaqada markaan kasoo fadhiistay fasax iyagay galeen markaas ii waa ii bilaabatay hadda waxaan soo jeeday 28 saac oo isku bixisaan soo jeeday xataa kawahayga bixin ilaa cad markii ugu horreysay noloshayda yani aad baan ugu raaxaysan marka waxa diilada ama dareenka dareemay waxa weeye maxamed umar goorma ku imaan doona oo dhihi doona hey kursan haysa waa iga soo dara saaxib furayaasha shanta xaafadood bay ii dhib saaxib isu dhisaabay meesha waa inuu saarnaa waan ogahay maxaan leeyahay furayaasha shanta xaafadood wuxuu iga soo doonan waaye waxaan ogahay inta dhalinyaro bulbula joogta ee qabta baahida oo kale waxaan ogahay inta joogta yax kuma ee baahida oo kale qabta waxaan ogahay inta sida joogta waxaan ogahay inta ku nool Ludwika, Borgesta, Falun iyo meelo ka fog ee baahida oo kale qabta marka waxaan waalidiinta sharafta badan meesha isugu yimaada ugu hambalyeynaya inay helaan dad oo u heelan kuna rajo weyn inay ka faa'iidaystaan insha Allah sababta ay ka faa'iidaystaan waalidiinta kale oo xudayaan haddii ay hadalkayga waxaan idinku bilaabay qofku hamigu leeyahay hamigu muxuu leeyahay hidsi maxaa leedahay waatankii sana ay la tagtay markaa leedahay waatan sana haddaan qorsheeda siiyo way ku xanaaqaysaa waxaa leedahay ma ilaahay baad looga soo marba hadda waatan markaa dadku sano waa inta nolol si laga wada socodis anaa baa kana aqoonsi waxaa inoo sheegaya insha allahu dad aad u tiro badan ayaa shaqada ka fadhiisanaya dhalinyarada soo koraysa ee gaaraysa heerka shaqona in badan oo ka mid ah waxaa looga gacan haadinaya magaalooyinka waaweyn soomaalida maraykanka ee badanaa ku faana in badan oo ka mid ha u malaynaya inay Minneapolis iyo Washington iyo Virginia iyo dhulka laga horumaray kama tuulooyinka fogfogu waa xasuusnaa baadiyaanka dhalinyarada midaan wax ku arkaysa tuulada markaa xoolaha ceelka oo kale kan xoolaha soo adeegna على كم كان فرحان كذا إني بعالي والله الرجال اللي كان صح سوى بنادم ستوكول ما دينا لا شرط قالوا بيا وصل سبحان الله بيا وصل وين ستوكول بيقول صراحة أنا داون إنه ما يقدر هو بين سويس وصل فرصة دي واحد تعب طالع فرصة دي واحد تعب طالع بلا عليك فرصة قلب عندك كراوة قلب كراوة والدين قلب كراوة ضمك إسقط الشقين أيام مدارياش شرفتا qodobna waxaan ka rabaa dhalinyaroy waxaan idinka rabaa in uu mustaqbalku idiin iftiimo moogtahay sideeda mustaqbalku marna waa iftiin oo iftiinka waxaad islada waa gaaraysaa marna mugdigu kaaga jiraa hadda waxaad meel mugdi ku jirta maad garanaysa waxa kaa dambeeya waxaan rabaa inuu mustaqbalku idiin iftiimo oo aad dareentaan inay berri idinka xigto saad ku gaartaanna waxaad u baahan tihiin hubkuna qoranki maaha la socday in adeer maaha ilaa xasiiska idinku dhaafta walaa xataa abiyo hooyo idin caawin wax keliya idinku caawin karaa inay idin dhahaan wali casharka ma akrin waa markii dee ilaahay uu naxariis ka keeno
waxa ugu muhiimsan ay qabanayaan fijeerkaasi soo buuxinaya inaba caadi ma kaas ma xal ma xisaab waxay idinka dambaysa la yiraahdo 18 jir waxaana idinka dambaysa xisaab la yiraahdo 22 jir inagu 18 bay dhalinyarada ku dhigto waalidka u hanjaa wallahi 18 gaar wada ka baxay waalid laakiin wada gaari la 22 waalidinta musiika balse hase sababta aad markaa dhaafto wala shaqaysan aqoon aan lahayn aan ku daba taag aqoonta markaa u soo noqon laba bay u feegtaa dadku maaha jaamacad ka wada baxay inaan keenay muslim su'aaladii weydiina aniga hadda Soomaaliya dad degan lahayd gabadheeda Maryam Muqsadis haddii soo doonto nin alxalaa haranti ma kaga saari lahaa xalaa dada waa gabadheeda waxa malaysa inay gumeed isla lahayd waddankaan aynu joogno ra'iisul wasaare waxa ka ah nin alxalaa oo jaamacad soo dhigay mataqaana sheekada Stephen Levin mataqaana ra'iisul wasaaraha waddanka wuxuu ka baxay school hoose markuu school la yiraahdo system kale oo qoraal soo alxan soo bartay kabacdina waxa weeye alxan ugu shaqaysanay kabacdina uu dhex galay arrimaha bulshada dhex galay waa lagu bariyay inuu waddanka ka noqdo ra'iisul wasaare kuma ilaalinaysa ma aha inuu dad soo laayay ma aha inuu deebax hatta isku xisbi ma la socdo ka xisbi laakiin gaar ka sayba la socdo kasoo gacanta waa muhiim kii jaamacad ku sii beeyay ka sii muhiimsan marka shaqadu saabay isaga rasaysan tahay boorka xaalad boorka iska jafta mustaqbalka waalidinta lacagta bidii ma sheegayo aniga idin la hadlaya horta waa ayuu tagaa hadda ka hor ayuu tadii galay way u go'ay baas marka baas ka markaa xabadii weeyahay qaabti bilaah ma kaga baxay deeqi ya Allah baa ilaahay iga saar lacagtii aan ku galay meel ka baxaa markaa marka oo wanaagsan guriga laga isticmaalo dhowr mar baan qarsan laakiin waxa la soo ogaaday inta guriga uu dhismo dadka uu dhismo in yar baa waalidiintu degan dad kale iska degan anigu waxa la sameeyay afar qoraal meel ka dhisay dadka ugu raacay walaalahay oo wasafuna gabar walaashay degan islaha wareerka iyo dad martii ay aad waa mid hore meel degan laakiin lacagta saddex wax ku wada dhanahay marka dhalinyarada kaalmaya xataa waxaad samaysaan oo aad ogahay magaalada inay ka jirto waalidiinta qaar inay xitaa ku karo ama wax la mid ah يعني إني العقد بدل يكون بحيان سير مو على عشرة ولا وقع وحال هذا إنسان بلاد حبان صرفة ما هم مكبح على هي والمجال اللي بتكون في المركز صومالينا متركة تذكر إسكا فوق صور شقينا وحال البعتها كانوا يعني جنب كسر السنة الدار كان يشيل والله كذا مركز كان سموسي رسمينا يا واحد جل كارتان كتير اللي يرى الله يسوي حيل الله يسوي ولا صعب تصور ممكن أنت يعني الجواب الله يكسر كوفي عاد إنه واحد مركز ولا لك فطور يعني ده واحد كده هذا الله لو واحد يستمع يا كودك وإذا فهمت جدود على هاي هو ملايين السيدة أقول هاي مركز قارنها كم صلاة مركز بمرة أيام وكون دوام أيه والله خشية ليه وإذا فهمت جدود عن كره ما هنا لا يتصل لمرة يسوع والله يوسف حاشا إلهي ما أقول له أنا ولا يسوع مركز arrinta dadka wax qabanaya macnaha ay yeelanayaan waa la soo waxay waxay tahay wadanka dadka ku nool qolo walba tigid bay leedahay ama profile wax la yiraahdo qolo walba shaabad loo dhigay Iraniyiinta waxa ku dhigay shaabada looga yaqaan wadankan inay yihiin wada academic kulli university degree waxa ninka qolay kale yiraahdo Finlandiiska iyo Talyaaniga iyo Bosniyiinta iyo waxa ku dhigan inay yihiin dad shaqaysta aqoontooda Maxamed dadka kale la mid gaangiistarada qaarkood way leeyihiin Finlandiiska oo wata kurdida waxa ku dhigan inay yihiin dad ku fiican ganacsiga gaar ahaan pizza qof kasta soo shaqay inaga wada hada safar ugu jira ilmaha photos darasaan dad pizza soo gaday waxaan dad ma maanta abu pizza ku soo gadaa hooyo pizza ku soo gadaa waxa ii qaw tag wala kala tuura isla ya sameeyay kurdiso Soomaalida waxa ay bayaan waxay ku fiican wala isweydi xabad wala soo qabanay la calaykum waxa la yiri aqoontooda waa hooseysa shaqana ma helaan aydana wax kasta uma bayashooda hooyooyinkooda u dilaan si ay u qaataan maaha dilku kii maaha yani beebay sheegaan aad u beebadeen si ay u helaan
hal laakiin wuu ku fiican yihiin hogaankiistaradoodu ma badan kuwa bangiyada jabsada iyo maaha. marka arrintaasi waxayna geysay inaynu ka hooseyno mujtamacyada kale. marka arrinta lai waxyeelo waxay tahay dikumaan la halkaasa kusoo geelgelina waxaa ii soo baxay statistic xisaabtan been kuma sheegay buraha kasoo bartay waa jeebkii ma hadii cabdiraxmaan iyo cabdiraxmaan axmed iyo jaamacadda ma waxaa ii soo baxday 60% inaga mida hadday dadaal sameeyaan waxay xambaari karnaa 40 ka soo haray. 60% haddaynu siyaasadda galo, dhaqaalaha galo, shaqada galo, wax soo saar aynu ula dhimaano waxaan la imaanaynaa wax soo saar iyo hogaamin iyo dambiyada nooyaan kor baynu usoo baxayna. Abdullaahi Sabriya waa xastaa macamila community inta ka guuray ee wuxuu tegay dukaamada ka mid ah kaarka shaqada inta uga laadlaado laakiin jaakadiisa u qarisa sababtoo waa xilliga qaboobaha habar riixaysa baalka ku socota kan oo hogaamiinta yaa sidaa u fiirisay iyadoo sankeeda xanaaq dartiisa uu dhidid ka fiinina wiya ilaahay waxay tiri ma lacagtayadii intaad qaadatay yaad safki ku jirtaa inta ku gadanaysa waa ninka kaarka shaqada inta maanta oo hifti ku saahay maxaa keenay intii ayda qaadanaysay ayaa waxay ka badatay intii shaqaynaysay rafanaysay. marka yaa qaatay magacii sumcadda yaa qaatay exactly. haddaynu badino intaas waxaynu xambaaraynaa hooyada ama aabaha 60 sano kusoo gala wadankan ee aan shaqaysan ama hooyada 7 caruura leh u suurtageli karin inay shaqayso inay iyadoo sanka ka hadlayso qurux badan ayduna usoo dhacda ayna xuquuqda ka mid inay dukaanka ka adeegato xuriyaa baa sheegaysa kan ugu sarreeya uu yahay qolka Soomaalida kuwa quruxda badan iyo xasha maasha Allah way soo shaqaysan ma fahamtay doodayda. intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waxaan mar kale ku celinaya waan idinka ballan qaadaya been idinma sheegaya furayaal badan ma wato waayo meeshaan waan deganaa furayaasha wataan wareejada wareejada igu sameeyey meeshaan xataa riyadii aan ugu talagalay sidii bay noqoto 8 sano ka hor qof Soomaali ma soo geli jira waxaan ilaahay ballan kula galay inaan ka shaqeeyo mujtamaca Soomaaliga weli noqdo mujtamaca ugu faa'iidaysi badan malaana meeshaan deganaa tiba ilaahay aqbalay laakiin inta keliya maaha kuwa kala sii wada. marka furayaasha xaafadaha iyo wixii kale oo taabagelina barasho wanaagsan hayda ama ku sax laakiin hal asxaan igu samay askartada kala soo ururso wiilasha sharafta badan soo masaxiyo madaalayaasha kuwa kala badan tii xaafadaha sida shaqoodu ku qeybiyay oo ugu wanaagsan u qabteen dhinaca kale maadiga kadis bal waxaan kugu qaaday wax walba oo taageero u baahan tahay inaan kula garab istaago haddii la hayo وليش أسبتنا إن عندنا لغة إن شاء الله وأنا شرف بريء إنه يدير معه ما هي ترى وأنا هذا أنا يبون أغني ويبينمو يبينمو التيم الأول وأنا أنا صلى الله عليكم شقق يا نوبة. هذه ما سيهاي جميع أنا تدار بدو بكر على الدار أو هم يري عرضيلا فايسو معلم حسن سلو مسرح ده وقت في راحة مسرح I'm so glad today to suggest a lecture about education on behalf of English students and computer at Tayo Sultan. Education is the light of life. Without education, we are in a dark, so we have to study and make progress in our life and follow the Swedish system. If we study today the different knowledge of education, we will reach our goal in the future. We have to put our best foot forward. Finally, I would like to thank the here general and all participants, and especially my talented, remarkable, lovable, and respectable teacher Muhammad Omar Nagar, who teaches us English and computer and Italian. I will also thank here. I will also thank here OBF for their role of education. Thank you very much for the listening and see you. Yes, collagen. Thank you very much.
I'm very glad today to talk about the physical firstly of the educational system. On behalf of the students, special part of information technology and English concept course, I would like to talk about the creativity of the students. If we are students, we have to follow the rules and respect our teachers, as well as with our students. We have to obey our teachers so that we do our best. We have also to display respect to the society, unit and take part of ongoing activities and progress of civil society. So this will be good example to you. I would like to thank you all your participants. I also to thank and appreciate here my very comfortable, well-known teacher Muhammad Marhiga, who teaches us IT and English intensive course. I would also thank you all for their year of education. So it's I, who am Muhammad Rahman Hassan, who will start today. Thank you. ولا فرق ما قدنا وحا هذا المسرح حدوث الأولين يا قدر عثمان طلال My name is Khadra Salam. Good afternoon, everybody. This will have a video. I'm so glad today suggesting my lecture of education on behalf of English students and visitors second. Because the life for life will educate you at them. So we have to start at the main program. So our level of the system, we need to start to learn education. We read our goal in the future. We have to put our best in food family to feel that elite or elite special talent and makeable, lovable and acceptable. Teacher Muhammad Al-Muleke, teachers at English Foundation. Thank you very much for listening. أنا برنامج كوكب هسه تحكينا يا معاكم هلا يا أخو والدنيا عبد الرحمن عصير سولو. صغير التهاب لكن المشكلة ما فهم ما بسم الله الرحمن الرحيم والله يوقع لأنه هرنا المشي لكن وكم أحسن إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ما دام ما أنت حبيت أيوة صابت هاي وحبرشة يريدين وحبرشة معنا كان مفرحنا هاي ضد سوق الجارية هوشان في شو معلمين تا خاصة معلمك وأد يعني سبوع هولي من أرمها برشلة هبين ما يتهاجن أد مفهوم هنا معلم وحال نوت هاي فين كين وحال نوت هاي يوتر كين اللي تسمعها من كيلو ديساي وانكم هنا ويقولوا عن مدارنا إن شاء الله يا كنا مفروض لنا إني يصدقوا من أول كل كل سنة عداني برا مسكعدني إني دلالان أفرح بهاي ممكن تكتبوا كل شيء تدعم وأي تعمل مع قطعنا من قطعنا والدين ده سيدنا مصر وشاقد وعاقي ويبقى بأي زين العكس فضلا العكس هلو بورا الماء مع ركزي شاقد سيدنا إنه مارك لو كان مع بعض نفع مع بعض وأنا كفر أحسن أي معنى إن هل كان يسوي ماله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان لا يأخذ والديته هذا وهي حفظنا يصير ذكرينا وحمير يا أرضي دخول الشيء صدق طلبة الجريشة أمير سعيد عبد الله يا أبو بكر عبد الرحمن عصير سوري Hello, how are you? So you are. What's your name? My name is Abu Bakr Amir. My name is Amira. Nice to have met you. Where are you come from? I come from Somalia. I come from Somalia. Where do you live? I live in Jamaica. And you? Sobre lava, Hello. How are you? I'm fine, thanks. And so do I. What is your name?
My name is Abuka and you? My name is Amira. Nice to have met you. Nice to have met you. Where are you come from? I come from Somalia and you? I am from Somalia. Where do you live? I live in Shalenga and you? I live in Shalenga. See you later. See you later. Bye-bye. حمزة عبد الرحمن عسير يا أبوك عبد الرحمن You speak English? Yes, I speak English. How long have you been studying English? I have been studying English for 3 months. That's great. Thank you. You have a good teacher. Yes, I have good teacher. What is your teacher's name? My teacher's name is Muhammad Omanaga. Okay, see you. See you later, bye-bye. waxaa jirta riwaayad aad u qiimo badan ay soo qabaqaabiyeen macalinka iyo ardayda waxaa hadda u yeerayaa ardayda computerka ku soo dhawaada SDRAM, DDRAM, power supplies, CDRW, DVDR drivers. Welcome home. Thank you. Good afternoon, all of you. My name is Mahad. As we are generations, we use applications to process the computer as friend user and do our different daily jobs. So the application programs are MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint, MS Outlook Express, and database applications. Welcome, Hamid. Hello everybody, my name is Mohammed. The information technology tutorial and abbreviation is important to know more about what it stands for. Therefore, let me give you a few details. MS stands for Microsoft. DOS stands for Disk Operating System. DOS stands for Disk Operating System. CLS stands for Clear Command. DIR stands for Directory. DEL stands for Delete. REN stands for Rename. HED stands for Hard Disk Drive. CPU stands for Central Processing Unit. RAM stands for Random Access Memory. ROM stands for Read Only Memory. Thank you very much for your listening and see you later. Thank you for listening. See you later. dadku waxay leeyihiin hadal le maanta meesha la soo taagan riwaayad qaybta riwaayad hadda bilaabeynaa riwaayad aad u xiiso badan riwaayadaas oo handhigeedu iyo magaceedu yahay baraarujinta waxbarashada daawashada riwaayadaas قصدك ليه كده maanta waxaan rabay inaan kulan wada sameyno maadaama adiga aad noo tahay maamulihii iskuulka marka waxaan doonayaa inaan ka wada hadalno arday oo maxaan ku sheegay xiisadaha aynu tahay waan ka wada tashanayna kadib ayaa soo gelaya cashir salaamu calaykum. Okay, waa ku mahadsantihiin macallimiinta kulligiin. Maanta waxaan ka hadlaynaa waa riwaayadan ka hadlaa haweeneyda waxbarashada. sidaas awgeed waxaan baraarujinayaa ilmiyaasheena inaan carruurteena si ay u baran lahaayeen si horumar gaari lahaayeen si hadhow dalkooda iyo dadkooda diinta loo anfici lahaayeen marka imika shir badan waxaan ii sheegayaa macallimiinta kulligood sheegayaa si ardada yacni casharada u siin lahaayeen si waqtiga macallimiintu ilaalin lahaayeen gaas kusoo degi lahaayeen ardadu si ay u hamsaami lahayn si ay u daba socon lahaydeen si ay cilmi ilaalin lahaydeen
وأعرف في عن مهما وحي أهيد أقول لآن وإفتين الآن مركا وإنا كنت دارنا أرديدا وأنا مهم إن أرديدا لكسول السوق بريجا والدين كأسول السان وأنا لكل مدونا اوكي markaa waxaan sugnaa ardadii islaan gelinaa ardayda waxaan sugnaa وين السلام وقت الوالدة في محل ساعدي ذو يسحنت هاي ما أنت 10 بنقادة من الدرن امتحابة كل دي استيارية qaadana xiisadii maantaha qaadana okay wadii sharaxaya waa ka jawaabaysaa ninku hadha wax kale su-aalaha ka jawaabaysaa waayo su-aasha buuri waxaa weydiinayaa ayaa weydiinaya kow lagu urtay kow amisa okay kow lagu urtay saddex amisa okay kow lagu urtay afar kow lagu urtay shan okay waxaan idlayaa homework aan idlayaa ama yani shaqo guri aan idlayaa waxaa kasoo shaqeynaysaa xisaabtaas kasoo shaqeynaysaa qof walba gurigiisa kasoo shaqeynaya si waa inuu soo imanaya waxaa kusoo dadaaleysaan inaa imtixaanka beri isku soo diyaarisaan 4 su-aal ee ka mid ahayd xiisada Soomaaliga wadashmo أو يا ريت كمان هاي حلقة من حيث 10 كل مرة راح يلو في ساعة برا الفيديو وحدة بلامتي امتحان بالك كسو كتب هذا امتحان كبا إذا ويدينا سؤال بقى ويدين جدا سؤالا سدات جواب ويسي قفول بسؤال شي ويدي هدوك جواب وايو وحكي جواب أي أحد كلايتو أو كوكو ليسو سؤاله هدي فرحية أيام بلا بينا فرحية إمسا أيجا كوبان الحروف الصومالية سيدي ميقو هتا قدر أيام كوبتو قدر قورما أيا لقري أب صومالية يا أوكي كقولي الحمد لله كوبتو الحمد waxaad sheegtaa haweeneyda ugu horeysay ee islaam okay amiiro ayaa ku xigto saas leeyahay amiiro waxaa sheegtaa saxaabiga ugu horeeyay ee islaam okay abubakar ayaa ugu dambeeya abubakar goormee ayay xornimada qaadatay soomaaliya Soomaaliya xornimada markay qaaday waa 1960-kii xilmaani hadalkuma jiro laba su-aal bay gafeen labadan gabdhood waxaan ku bedelaynaa ardaydankooda jawaabta su-aalahooda ayagaan weydiinaynaa ayagaa idinkaga jawaabayo xamdi imise ayay ka kooban tahay xurufta Soomaaliga
rufood 21 rufood waa shibane 5 waa shaqo waa mahadsan tahay Abubakar ayaa iskale su-aasha kale goormee ayaa la qoray 1972 okay xiisadii waa inoo dhamaatay adinkana waxba ka maadan jawaabina waalidkiina baa la kulmaynaa insha allah khayraas ku عجلات داير الله كنا ما صوتي سفر وصل شيء السلام عليكم ابو كيف يا ابو ابو ستاي ايه ما شاء الله هي حاجه انت قاعد تجينا واخذين اي حاجه ما ستاي ayaa maakay ninkaygu waa maqan yahay ilmahaygu waa maqan yihiin والله يا أنتم استرس أقول بدل ما كنا يا ما كان بسوي هذا جواتي هالبدي ومراكنا والله استرس بس كده بيجي رأي ما استرس بس كده بيجي واحد هارو ها أنا هذا أيوة أيام ترى مو بدي مرة ما بيشوفها هذا مراكنا والبريء جاي أها استرس بدل نجير يا ما كان يا أخي لا استرس برجله أيوة أنا هالبداية وحاسة يوسعنا يقدر بيجي أكلها صدق بدل كلام سمية وأنا بيجي أصدق لنا حاجة غير مفيدة تقول لكن بيشوفوا قاعد تقول يساربا سوق الباب كذا قناع يا ما دوني كي يجيها لعند ضغط حمون يصير وكنا كان كمان ده يتعاشى قلت أسوي ولاقيا ولا هي والحال ولاقيا تسعاشى كلا الحال هذا يسمى فرطي صدر بس كان يسوي تريد كلام صدر المهم يقول يا جماعة ما كنت بس بس صدق ولاقيا